بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waxaan idin la wadaagayaa war saxaafadeed ee ku saabsan wada hadaladii dhawaan dhex maray madaxda sare ee Galmudug iyo wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya dowlad goboleedka Galmudug waxay marka hore ay si diiran u bogaadinaysaa booqashadii rasmiga ahayd ee wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya injineer Maxamed Cabdi Sabriye uu ku yimid magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug 26 Maarso 2019 wasiirku intii uu ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb wuxuu la kulmay madaxda sare ee Galmudug sida madaxweynaha gudoomiyaha golaha baarlamaanka madaxa xukuumadda iyo golaha wasiirada dowlad goboleedka Galmudug kulanku wuxuu ahaa gogol xaar ku saabsan xal u helidda khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya Galmudug iyo dowladda federaalka Soomaaliya Galmudug waxay muujisay in wada hadallada la isugu iman karo haddii dowladda federaalka Soomaaliya ay tixgeliso dastuurka Galmudug isla markaana ay gacmaha kala laabato faragelinta qaawan oo ay ku hayso jiritaanka hay'adaha dastuuriga ah ee Galmudug sida mudaxileedka madaxweynaha iyo sidoo kale golaha baarlamaanka sidoo kalena dowladda goboleedka Galmudug waxay dalbatay in furitaanka wada hadallada ka hor dowladda federaalka Soomaaliya ay xayiraadda ka qaado kaalmadii miisaaniyadeed ee Galmudug ay ku lahayd qoondada miisaaniyadda qaranka iyo mashaariicda horumarineed ee hakadka ku jira muddo ku dhow sanad si loogu adeego shacabka Soomaaliyeed ama shacabka Galmudug oo la daala dhacaya duruufo adag sida colaado iyo abaaro soo noqnoqday wasiirku waxa uu dhageystay dhammaan tabashooyinka iyo soo jeedinta madaxda kala duwan ee Galmudug waxaana uu dib ugu noqday caasimadda Muqdisho si uu la soo tashado madaxda ka sareysa waxaase nasiib darro ah iyadoo wada hadalladu ay bilow yihiin in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya oo ka qayb galaya munaasabadda furitaanka kalfadhiga shanaad ee golaha baarlamaanka qaranka uu soo hadal qaaday in doorashada Galmudug ay qabsoomeyso Julaayo 2019 iyo in munaasabadaasi lagu casuumay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casir taasi oo dhaawacaysa midnimada Galmudug iyo dadaalada socda waad mahadsantihiin